السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو عبد الشكور آدم. أنبا sidoo kale waxaa la yaqaanaa Suldaan Aadam. labada magac waa la yaqaanaa laakiin magacay xaqiiqi waa Cabdishakuur Aadan. Suldaan Aadan noo ugu yeeri karaysaa. maanta waxaan doonayay insha Allah inaan in la wadaago video yaro kooban oo aan ka soo duubay mar laptopkayga wax laga bedelay. markaasaan doonayay insha Allah inaan in la wadaago videoga iska kooban oo waxyaabo badan aan doonayay inaan ku tuso. sidaad arkaysaan laptopkii maanta waynu kala dhigdhignay. marka ugu horeysa waxaan ku soo daray SSD oo ah hard disk ah oo saa loo yaqaano solid state drive la yiraahdaa. waa hard diskiga yar ee kooban ee aad arkaysaan kaasoo features badan leh amba waxyaabo badan uu dheer yahay hard diskiyada kale marka loo barbardhigo HDD-ga. HDD-ga marka loo barbardhigo HDD isagu waxa weeyaan waa canjalad kale oo dhexda kaga jirto canjalad kale kaga jirto oo magnet ah. marka canjalad aad u culus buu ahaa marka loo barbardhigo canjaladan. sidoo kale HDD wuxuu ku jiray kombiyuutaradii hore ayuu ku jiray. waxoogaa kombiyuutaradan dambe waxaa la soo geliyaa SSD baa la soo geliyaa waayo oo isagu wuxuu aadna uga fudud yahay softwareadii badnaa ee ciladu ka haysatayna aad ayuu kugu fudaydinayaa. sidoo kale xawaarihiisuna aad buu uga dheer yahay marka loo barbardhigo HDD-ga. marka ugu horeysa waxaanu gelinaynaa hadda SSD-gaasaynu gelinaynaa. sidoo kale waxaan geliyay RAM baan geliyay kaasi waxa weeyaan HDD-gii weeyaan aan ka bedelay computerkayga oo marka labadaba markii hore waxaan isku dayay inay isdhex galaan HDD iyo SSD-gu inay isdhex galaan baan isku dayay laakiin way isqaadan waayeen oo macquul bay noqon weyday computerka aad buu culusaaday. sidaa daraadeed mid kaliya ka dhigay oo SSD baan ka dhigay. haddaba SSD waxa weeyaan GB-giisuna waa 120 GB weeyaan laakiin 120-ga ayaa u dhigma 500 ilaa 200 oo HDD-ya waayo uu ka xawaare dheer yahay uuna aadna uga fudud yahay markaad computerka isticmaalaysid oo ay tusi doonaa. haddaba waxaynu gelinaynaa SSD-gii computerka hadda. sidoo kale waxaan ka bedelay memory ayaan geliyay. memory-gii hore ku jiray wuxuu ahaa 4 buu ahaa. hadda memory-gigan cusub waa 4 kale aan kusoo kordhiyay oo isna aad iga caawiyay aadna u fududaaday computerkaygii. sidoo kale ciladii haysatay oo ah markaan laptopka damiyo isla dib u soo shid inaan waxyaabahaygii halka iga sii socdeen aanu soo dhigayn ama softwareadan isticmaalayay iyo waxaan isticmaalayay laakiin kan markaan kusoo kordhiyay memory aad u fiican weeyaan marka loo eego kale aad uga fiican yahay uu soo dhigaya hadda. marka sidoo kale hadda waxaan ka bedelayaa battery-ga ayaan ka bedelay sidoo kale oo waxaan geliyay battery cusub baan geliyay. marka hadda waxaan ku xidhanaa SSD-gii baynu ku xidhanaa computerkeena ayaynu ku rakibaynaa saad arkaysaan. sidoo kale hadda waxaynu ku xidhanaa operating system bay ku xidhanaa Windows 10 ah ayaynu ku xidhanaa. qaybtii SSD-gii ayaynu qaybtii HDD-gii ayaynu u bedelaynaa SSD baynu u bedelaynaa sidoo isku qaato. marka hadda saad arkaysaan uu qaatay. marka waxyaabo yar oo aad computerka ka bedesho ayaa hadhow ku anfici doona. hadhow haday cilad ku timaado xitaa computerkaaga waxaad sameynaysaa intaad qalab ka saaratid ayaad qalabka cusub ee computerkaaga cusub ee soo iibsatid ayaad gelin doontaa. taasina way ku dhib yaraynaysaa. marka aad baa idin salaamaya dhammaantiin khayr baan idin soo rajeynayaa. videogan asxaabtiina la sii wadaaga say ku noqoto idinkana aad idinku anfacdo. sidoo kale channelkana subscribe dhaha. channelkayga hadda cusub ee aan samaystay oo inkastoo carabi hadda soo geliyo aan 2 video soo geliyay. videoyo badan insha Allah Soomaaliyana waan idin soo wadaa.
aad baan ii salaamaya dhammaantiin, asalaamu calaykum.